وأريد السلام يا عادي يا أبغى ندي السلام يا صلاة الإسلام كان يدقوا السلام يا نمبر 2 مرلباتك وأريد ما هاد لقيا دليل يردينا أبدا برشدينا أبدا إما أنت عددا أصوب بحدي كل الكاو بردي سيدا أوركن برواقة وتاجرتان ثانا ويدكم ما هاد لقيا واحد يدي شيء ما أنت دلكينو بيل حساسي ومريا دورشة ما أنت نقصو صعطاي ودورشة مهمة ويان تاسون بسوماليلاند أما وحكون نقدون تا أما إنكم برك عندونا صوصيدا ماها وحكرو يدي شيء وأينو وده أغنهاي إني صعطو دبايل إسبدل دولي ودتكم ما أنت إسبدل دون يان أنا قلت أنا دي شيء أنا واحد تاجر صناعي ونقعدين يا ونقولين يا مشرح عبد الرحمن عبد الله عرو يكون حجين كيسة محمد علي هو صبينا يا واحد جعلها وأدونيا الحزب الوطني وصبحه كانوا ودونيا maxay tahay raaca waxa sheegaya uu dalkan u baahan yahay dhiig cusub dhalinyaro cusub waar inaynu ka gudubno xusbiyadii soo gaboobay oo aynu dad cusub ku soo biirino maanta taambar waaqa ugu yimi aan ku taageersanahay waa laba arrimood waa iyagoo dhiman dhalinyaro waa iyagoo cidna eed ka gelin waa iyagoo aan dalbi gelin iyagoo musuqmaan noqonin iyagoo aan xaraan cunin taasaynu horta maanta aynu ku taageeraynaa dhalinyarada wax dooratay ta kale aniga muhiimkii waxa weeyaan dhalinyarada maanta halka isugu timi xusbiga barwaaqo taageeraysa aqlabiyadeedu waxay ka timi gobolka Awdal war hadaynu Soomaaliland nahay Awdal kama maaranno waa waxa Soomaaliland ka dhigay ee ruuka ku taagay waa gobolka Awdal haddii gobolka Awdal aanu Soomaaliland ku jirin maanta Soomaaliland may noqotay Soomaaliland waxay noqon lahayd sida cadawgeenu sheego istaaqlaab bay noqon lahayd miyaynu doonaynaa inaynu istaaqlaab noqono miyaynu doonaynaa Soomaaliland baynu doonaynaa haddaynu haddaba Soomaaliland doonayno oo inaga dhabtahay gobolka Awdal wuxuu u baahan yahay in ururu soo baxo ayna xusbi yeeshaan oo inay siyaasadda dalka ka socota iyo manaafacaadkeedaba ay saamigooda ay xaq u leeyihiin ku yeeshaan talada iyo wanaagana kala qayb galaan bay u baahan yihiin yaanan dadka Soomaaliland waxaan u sheegayaa Awdal bilaa xusbi joogi mayso inaba maynaan joognayn bilaa xusbi maynaan joognayn waxaan kale u sheegayaa taariikhdeena haddaa ku noqotaan intiinan waxaan hubaa boqolkiiba boqol inaanaydan dhalan oo aanaydan jirin 60kii markaynu xorriyadoonka ahayn saddex xisbi baa ka jiray dalka xisbi SNL la yiraahdo mid la yiraahdo AUF iyo mid USB la yiraahdo labada hore ee xisbiga SNL iyo AUF beesha dhexe bay ahaayeen USB-na Awdal bay ahayd Awdal iyo Sool baa wada lahaa Awdal iyo Sool baa la wada lahaa sida awadeed baynu ku gaadhnay xorriyadda oo aynu Ingiriiska iskaga kicinay haddaanaynaan taa samayn lahayn oo aynu markii Awdal qadan lahayn oo aynu Sool qadan lahayn Ingiriis aynu iska kicin kari lahayn iyo xorriyadaynu heli lahayn midna ma jirto tii baynu maanta taagannahay midda kale dadka Soomaaliland waxa doonaya inaan u sheego war barwaaqada Soomaaliland dalka Awdal taala gobolka Awdal taala Soomaaliland oo dhan baa u baahan war gobolkaasi saliid buu leeyahay shidaal buu leeyahay macdan buu leeyahay beeruu leeyahay buuruu leeyahay war bad dheer oo dekada ugu weyn East Africa laga sameyn karayo buu gobolkaasi leeyahay inta dawladeedu inta dad aan arkay inta shirkadeed aan arkay ee igu yiri dekad baanu ka samaysanaynaa Awdal mareyn maysan war Awdal waa halboolihii Somaliland iyada u baahan waxaynu doonaynaa markaa war beesheena dhexe waxaynu doonaan isku qabsano
labadaa xisbiyo kale inagu aan isku qabsano aan ku tartanno laakiinse awdal ilooba ilaahay baan idinku dhaarshe waa inay urur heshaa urur way haysataa waa inay xusbi heshaa baynu sidaasaynu ku doonaynaa reer awdalla maxaynu uga baahannahay reer awdalla mid baynu uga baahannahay inay midoobaan oo ay isku mid noqdaan oo khilaafka maanta dhex yaalla joojiyaan oo xusbi ay ku taageeraan hadday ay ku heshiiyaan oo xusbigaa taageeraan oo cududiisa wada siiyaan oo soo saaraan hadalka waxaan ku soo dhammaynayaa mid yaroo waanaa war waxaan idin bahasha doorashadu way xajiin badan tahay way colaad badan tahay mid uun aan iska ilaalinno war ninkiina cabdulla xasan wuxuu yidhi baandhow axsaan lagama tago haddaad eed faliye war in la tartamaa waa xal weeyaan waana waxa dalku u baahan yahay waa dimuqraadiyeed laakiinse waxa foolxumo ah caydan iyo buuqan iyo anshaxumadan iyo beelaha iscaayaya ee bulshadeenna maanta ka socda waynu ku fadaxadownay ceeb baa inaga raacday wixii Soomaaliland laga filayay maaha inagoo si fiican u tartamaynaa oo si fiican nin walba xusbiga iyo ururka doorashada taageeraysid laakiinse wanaagayaan inaan ka tegin qabyaaladdan xun ee aynu qaawinayno aan hoos u dhigno oo yaan inaan qabyaaladda sii wadwadin nina wada reero isku wada midabaynu nahay meel baynu ka wada nimi gobol baynu ku wada noolahay waxba isma dheerin qabyaaladana ilma rayaalaan sida u yarayno waxaan ku dhamaynaya oo aan jecelahay oo cod aad iyo aad u weyn aan jecelayn u diro baaq weyn u diro gabdhaha sharafta leh ee Soomaaliland ee ka hadla baraha bulshada walaalayaal waxaan idin oran lahaa hablahaasoo waa idin jecelahay haddaa wax wanaagsan ku hadlaysaana hadla haddaa laakiin saciid caayaysaan ama caaytamaysaan ama anshaxumo keenaysaan bilaa calaykum naga aamusa waxba noo tarimaysaane dalkiinana u tarimaysaan sharaftiina waxba u tarimaysaan beelaha ka soo jeedaa waxba u tarimaysaan sidaasaan idinkaga tegayaa barwaaqo iyo awdal waa taageeraynaa sidaasay Soomaaliland ku dhismaysaa waydinka المدى وتمضى كفيك ولماذا يذاكر واقصد حبي ما ينكر قوي تنفيك سيكون شيء يتشعر أبا